wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa safiirka Kenya u jooga Soomaaliya waxa ay u gudbisay qoraal cabasho oo kalena xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya kaas oo qoraal Twitter-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya soo geliyay isla markaana ku sheegay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan. xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Ambassador Kemuyu oo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji ayaa waxa qoraalka barta Twitter-ka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in Kenya iyo Somaliland ay ka wada shaqeynayaan iskaashiga labada dal kaasi oo loo arkay culays siyaasadeed oo ay Soomaaliya ku saarayso Kenya. qoraalkaasi ayaa waxa lagu sheegay inuu noqonayo mid halis ku ah madax bannaanida midnimada dhuleed iyo sidoo kale sharafta Soomaaliya isla markaana ay Soomaaliya u taagan tahay daris wanaag ixtiraam labada dhinac iyo sidoo kale iskaashi dhow oo ay la yeelato wadamada dariska la ah taas oo kalena looga baahan yahay sida lagu sheegay qoraalka in Kenya ay la imaado